munaasabaddan oo xilalka ay kula kala wareegayeen gudoomiyaha cusub ee madaxweyne Silaanyo oo dhawaan u soo magacaabay Banka Somaliland iyo gudoomiyihii hore ayaa maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa waxaana munaasabadaasi xil wareejinta ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda talada dalka haysa xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka guurtida iyo wakiilada Salaadiin Uqaal iyo shaqaalaha banka dhexe ee Somaliland ugu horeeyna waxa munaasabadaasi ka hadlay wasiir dawlaha wasaaradda maaliyadda Somaliland عثمان سحديد عداني عبد الدرير مدة 3 سنوات وحن شالينا وما هضنقه سيدي وفنانتها هاي إياها وكرنمضة لهاي أو نولش شقيقي وزارة المالية هي جمهورية الصومال الله وضعه هدي وحون عبد اللي شيء وحوي ديك هي وكبير هذاك هي وفاس ورفاس السيسي ذا الكرنسا أيوة أنا يوم حكى كده بقول يا عدو هاو كرنمو iyo maxaan ku dhahay wada shaqeyn laakiin nin waxa weeye runtii jamhuuriyadda Soomaaliland ay sharaf iyo mahadnaq iyo ragayagii iyo hablaayagii la wada shaqeynayay wasaaradda maaliyadda aan u hayno Cabdi Dirir Cabdi gudoomiye hore bangiga dhexe ee Soomaaliland isaguna halkaasi ka hadlaya waxa uu ka waramay waxyaalihii kala duwan ay u qabsoomay muddada uu xilkaasi u hayay 3 bilood bay dadku mushahaar la ahaayeen waa ogtii إلهي بام محله ما أنت صدقية طبعاً كفرع بنك سومالان وهوسي ما دار خسنا ده اللي عقبه كم بحده واربين مين شيء يا مام الله يا ويلك هذا فنيه الحمد لله الحمد لله الحمد لله أنتي أن بنك شوقي وحياة فرمضان با رقم صومي حيالها أبوه وأبوه وحكم لها العكس وأنه كم بالليل قبل خبرعه لعيتي وأنا كبد لي قبل السنة كواس وكتري قضون نقالة وايو ودك أنتي سكالة باني معاملة بعم مشتري لكلي أنا لقلي كريتين عبد الله حاتي جامع قدوميها عصب بنك قد حي Somaliland يسقون مناسبة داسكات لا يا وحوت المامي وحب علي وحويا وإنفليشن وأن عدنا يسقون عافين وكل والبا يقف بصامين يوي إنفليشنكا قرشان كده جرينا شركة لوجو هي وزارة المالية هي وزارة قرعسك يان وضيان دونه قرشيتنا إن شاء الله تعالى وحنجعلها هي وحصل بحان بالقصة بحان حتى هوش لوجو علوسي واكا وحكلا أو ما تنوي يلا أو أنو كور ورا أما أنو كسي حنكر وينا وإنفليشنكوي